ciyaartan oo u soo daawasho tagayeen taageerayaal aad u fara badan oo isaga kaliimid 17 degmo ee gobolka Banaadir ayaa sidoo kale waxa ka soo qayb galay xubno ka kala socda labada gole ee dawladda Soomaaliya. natiijada ciyaarta ayaa waxay ku idlaatay 3 gool iyo gool oo ay guush ku raacday kooxda ku ciyaaraysa magaca gobolka Banaadir. wasiiradda dhalinyarada ee ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa garoonka gudihiisa kula hadashay warbaahinta xilli uu garab taagnaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya eedoo sheegtay in guul ay u tahay wasaaradda in tartankani Muqdisho uu ka qabsamo sanadkii labaad oo xiriir dawlad goboleedka Jubbaland hadda waxa lagu jiraa waqtigii dhaxtaalka ama kaambiyaha dawladda ra'iis waxay noo tahay wasaaradda dhalinyarada isboortiga oo qabatay ciyaartan iyadoo kaashanaysa xiriirka kubadda cagta dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirna ay ka yihiin tartamayaal ayaa waxaan muddo dheer soo diyaarinay tartankan lagu wada faraxsan yahay lagu wada qanacsan yahay wadar ogolka ah mas'uuliyiinta gobolka Banaadir iyo dawladda ma soconayso xeerarka gaarka ah ee hadda loo sameeyay qabashadiisa waa mid la isla wada ogol yahay wuxuuna salka ku hayaa xeerarka caalamiga tartankan gobolka Banaadir ka dhacay waa markii ugu horeysay dad badan waxay qabaan in sanadkii hore ay tartameen dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir laakiin waa kala dhantaalnaayeen hadda ma kala dhantaalna waayo Hirshabeelle shabeellada dhexe iyo Hiiraan ay ku ciyaartay maanta dawlad goboleedyada dalka oo dhameystiran ayaa ku ciyaaraya iyo tartanka gobolka Banaadir waxa tartankan weheliya xeer la'aan ayaa lagu ciyaari jiray sida xiriirkaba ay ka warqabaan iyo Olombikada qaranka xeer loo dajiyay oo wada tashi wasaaraddu ka soo samaysay oo lagu wada qanacsan yahay raalli la iskaga wada yahay lagu qabtay oo salka ku haya xeerarka iyo shuruucda kale caalamiga ah waxa racfaan guddi ka ah markii ugu horeysay oo la diyaariyo intii qaran burburka nagu dhacay guddiga racfaanka ciyaartoydii hore ee qaranka Soomaaliyeed qaarkood hadda marti dalka ku yihiin qaarkoodna ay hore u joogeen waxa xusid mudan ciyaartoydii xanuunsanayd oo shalay la dadaaminayo ayagoo socda in ay soo galeen sida ciyaartoygii jiro oo taariikh weyn ku leh isboortiga Soomaaliyeed kaliya inuu tartankan fariisto dadkii indhaha la'aa oo ku jiray taageerayaashana uu ahaa ayaa shalay joogay waxa hadda fadhiya oo aad arki doontaa odayaasha isboortiga Soomaaliyeed oo ah guddiga racfaanka tartanka haddii Allah awood la ogolaado dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo kamid ah daawadayaasha ciyaarta maanta oo isna warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dareenkiisa kulankan iyo ka soo qaybgalkiisa qayb kamid ah horumarka ummadda Soomaaliyeed ee ku talaabsatay kulligiin waxaan idin rajaynayaa guul waa ku mahadsantihiin maalintan taariikhiga ah oo ku mahadsantihiin inaad ummadda Soomaaliyeed nolol dhab ah u soo celiseen ciyaartoyda kulligood waxaan u rajaynayaa guul laakiin waxaan leeyahay muhiimaddu waa ciyaar wanaag iyo sharaf iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin insha Allah ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Taabid Cabdi Maxamed ayaa markii ciyaarta ay soo idlaatay warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka isaga oo hambaliyay iyo bogaadin u diray labada dhinac ee maanta ciyaar wanaag ku soo bandhigay garoonka waxaana fariin u diray kooxaha kale ee tartankan u haray oo bari maalmaha soo socda ciyaari doona oo si toos ah u bilowday tartanka kubadda cagta ee u dhaxeeya gobolka Banaadir iyo dawlad goboleedyada oo maanta lagu furay gobolka Banaadir iyo dawlad goboleedka Jubbaland waxaan runtii aad u amaanaya ciyaartoyda labada dhinac ee ka socotay gobolka Banaadir iyo Jubbaland oo runtii ciyaar wanaag akhlaaq asluub saaxiibtinimo iyo sidoo kale wax ku dayasho mudan dhamaantood laga arkay waxaan nasiib u yeeshay markay ciyaarta bilaabaneysay inaan ciyaarta la bilowday oo aan la dhameystay labada kaambiyo oo aan fiirsada waxaan ku arkay wax aad ii soo jiitay ayadoo banooniga la wada ciyaaraya haddana waxa ka wada muuqatay wax la yiraahdo isdhaxgal oo runtii wax aad iyo aad u wanaagsan marka waa amaanaya kulligood waa bogaadinaya waxaan leeyahay hambaliya labada tiimba runtii waan u hambaliyeenaya sababtoo ah waxa ugu wanaagsan marka kubadda la dheelaa waxa ay tahay waa ciyaar wanaag iyo sidoo kale akhlaaqda oo wanaagsan marka labada waa u hambaliyeenaya ciyaar wanaagsan ayay ciyaareen oo ciyaartii wanaagsan ayay ku dhamaatay banooniga sidiisana waa cad iyo madow ugu dambeyn koox bay raacdaa guusha laakiin waxaan leeyahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaad bogaadinaya ciyaarta wanaagsan iyo sidoo kale asluubtii akhlaaqda loo ciyaaray waxaan ugu baaqaa kooxaha soo socda biri dheeli doono kuwa kale ee saadamba dheeli doono ciyaartii maanta la arko kale ciyaarta wanaagsaneed iyo dishbilinka lagu ciyaaray intaas sii wada waa hambaliyeenaya dhammaantiina hambalyo aad baa u mahadsantihiin salaam